anigoo gudanaya waajibaadkayga qaran ee dadkayga iyo dalkayguba ay igala maaragtay igu waajibka ah waxaan doonayaa inaan laba eray ka yidhaahdo jaadka iyo xiriirka uu la yeelan karo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee maanta caalamka aafeeyay xanuunkan wuxuu ka bilaabmay gobol China Wuhan kadibna wuxuu ku faafay daafaha caalamka waxa xambaaray dayuurado iyo gaadiidada kale noocay doonaan ba ahaadeen kadibna markuu tagay dalalkii kale wuxuu noqday xanuunkani xanuun dilaa ah oo aad iyo aad u fida qiyaastii qofkii 3 qof ku dhow saddexdaasina qofkiiba 3 sagaalkaasina qofkiiba 3 muddo koobanna uu aafeyn karo magaalo dhan uu ku koobnaa oo maarta aafeyn karo maanta xanuunkaasi wuxuu kor u dhaafay 2 milyan oo qof inta laga helay waxa se hubaala in inta in ka badan aan la baarin oo ay dhaxyaacayaan caalamka adduunka waxay geeridiisii kor u dhaaftay 150,000 oo qof dilaanimadiisana halka ayaad ka garanaysaa xanuunkani midab iyo diin dhaqan iyo dhaqaale minna male waa loo sameeyay bahda bini aadamku xanuunkan waxa dhaqan u ah inuu wax ku fidiyo meel dhow oo kooban waa in qofka hindisadu gaari kartaa waa in qofku qufaca candhuuftiisu gaari kartaa waa in meel qof xanuunsan taabtay ku hindisay qofka kale uu taabtaa oo sidaas ugu yimaada ma aha xanuun dabayli qaadi karto meel fog ay gaarsiin karto ma aha xanuun cadceed iyo safar ku adkaysan kara ma aha xanuun inta biyo raaca meel kale maartay ku tagi kara ma waa xanuun dhawaansho wax ku yeela dhawaanshihi waxay keentay inuu dadkii ugu soo galay guriyihii iyo xaafisyadii inuu maartay saameeyay xiriirkii bini aadamka oo dhan inuu saameeyo qofka kale uu ka baqay xanuunkan dawladihii caalamku waxa loo kala bixiyay laba xilliga koowaad oo ah xilliga aanu soo daadin dadka oo aan xanuunku qarxin iyo xilliga xanuunkii dalka galay laakiin aan wali calaamada waaweyn laga arag waxa dad badan is weydiiyay dawlado u dhow China sida Taiwan sida Singapore sida kuwa South Korea way xakameeyeen dawladihii ka fogaa ee qaniga ahaa ee aqoonta sare lahaa sida Talyaaniga Spain Faransiis Mareykanna digadu ka dhig maanta caalamku wuxuu ogaaday in guushu ay ku jirto fayska koowaad la dagaalankiisa ee aan ahayn fayska labaad markuu soo galo fayska labaad markii la gaaray xanuunkii uu dilaaco ee ummadii tartab u soo rido marka waxa weeye sariiro uma haysid ventilators uma haysid dhaqaatiir uma haysid nursing uma haysid wuxuu burburinaya dhammaan itaalkii dawladda ugu weyn waa Mareykanka oo kale ka soo qabo ayuu wada baabi'iyay itaalkoodii maaragtay caafimaad ay dhisteen dalkoodii burburiyay laakiin waxa lagu kala guuleystay dawladaha China u dhow oo xiriirka joogtada iyo socodka joogtada u lahaa waxa weeye gacan birah bay waxay ku qabteen xanuunkani dal gudihi kama dhasho meel buu caalamka ka dhashaa kadibna wuxuu ku fiday daafaha caalamka China ka dhashay China gobolka mid uu ka dhashay kadibna sidaa ayaa loo xambaaray marka dawlad walba waxay xiratay xadkeedii dawladahaasi waxay ku guuleysteen in qof kasta ee ka soo degaya airport deked dhul la joojiyo la xanibo la baaro in allaale intuu dad la yeelan karo gudaha iyo xiriirna qof loo baaro waxay ku guuleysteen inay kala fogeeyaan dadka waxay ku guuleysteen inay dadkii maartay u wada xiraan sanka iyo afka iyo magaciisa waxay ku guuleysteen wacyigelin xad dhaaf ah oo dadkii ay ka dhigeen mas'uuliyiinta iyagu ka qayb qaadanaya dagaalkan ka qayb qaadanaya ay ka guuleysteen dhaqaale meel baa la iska dhigay dan shakhsi meel baa la iska dhigay nafta bini aadamka ay mas'uulka ka yihiin say u badbaadin lahaayeen ayay number 1 ka dhigteen dawladihii reer galbeedka ay is dhigtayna way idinka arkaya maanta Mareykanku qura 30,000 ayuu kor u dhaafay inta uu ka dilay maartay ayuu kor u dhaafay waxa weeye hadaba xanuunkani ma aha dadku hadduu haysto dadkeena waxaan ka maqlaa ma yeedee geerida Ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafi maayo waxaan idin sheegayaa
waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagayo qofka markuu dilaya waa mar waxbad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa samabadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayaa kaliye dhaawacmeen ayaa maskaxdii dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolaanayaa xanuun culus oo waliga la nooleeyay yaan la idin ka dhaadhicin geeri kaliya arintu maaha geeri ma aha waxa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dawladaha waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbow ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimana dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacmina ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraabadiisa geeridiisa iyo magaciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dawladaha China u dhow ay galeen ee ah inta aanu dadka layn ee u soo shaabixin inaan geeysano waxa laala wixii awood aan leenahay waxa weeye haduuna soo galo xanuunkana soo galo bal waxay qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhakhaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta guro kiiba qaali yahay baan u haynaa intaba ana idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xagee buu qabanaya marka waxa weeye intaanan dhibaatada meesha ugu dambaysa la gaarin maxaan qaban karnaa wayna gaarnaa haddaba jaadku muxuu ka yahay waxyaalaha aan ka hadli doono jaadku anuu maanta ka hadli maayo caafimaadka guud waxa uu la leeyahay ee hore ula lahaa anuu waxaan ka hadlayaa waxa weeye covid-19 muxuu qayb ka qaadan karaa jaadkan waxa weeye cunto aan daboolayn aan bac lagu soo xirin aan warshad ka soo bixin aan la soo mayrin aan la soo daweyn oo iyadoo nadiif qofkii bacda uu ka furanayo ee waxa weeye waxa lagu dad baa gacan ku soo habeeyay gaari baa la soo cararay dad kala taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabanno ee lagu iibinaya kolayga la yiraahdo maalin qof baa soo maraya uu iska eegaya uu naqayshanaya gacantu ku taabanaya uu ka tagaya adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana covid-19 buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirus ku keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaadii yaa ku damanad qaadaya xaaskaaga jecelaad yaa ku damanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii alla dhex fariisatay yaa ku damanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaba la fariisateen mafrish baa fariisatay yaa ku damanad qaadaya mid idinka midi inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan la soo taaban waxaa maanta la xaqiijiyey taabashadu inay tahay waxa ugu weyn ugu fara badan ee xanuunka lagu kala qaado waayo inta hindhisa isku taabanaysa waxa ka badan inta albaab taabanaysa inta gaari taabanaysa inta socod wax ku taabanaysa taabashadu marka waxa la isku raacay inay tahay sidaha xanuunka ee ugu badan mid baa yiri war iska meyrina walaalo waxaan ku sheegayaa gacmaha biyaha markii lagu meero sida ku cuntay cunto marka dufankii miyay ka baabiin kartaa waa maya xanuunkan waxa ka tirtiri kara oo dili kara oo qura waa biyo saabuun ay wadato weey marka jaadka masaabuun baa ku meeraysa kuma meeri kartid naftaada u baq nafta xaaskaaga u baq nafta ubadkaaga u baq nafta maaragtay dalkaaga iyo dadka jecesha u baq maanta ito mas'uuliyadda ugu culus aan kaga bixi karnaa dalka waxa weeye qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo waxaan idin xaqiijinayaa intaas oo goob oo uu soo maray ee la taabtay inaanay dhici karin inaan xabad qurana aanu taaban qof xanuunka qaba xanuunka waxa uu taqaanaa kan qufaca lagu sheegayo kan xumada lagu sheegayo kan hindisada lagu sheegayo waxa la soo xaqiijiyay 14 casho hore aan xanuunku xataa muuqan qaar kamid in xanuunka sii fidin karaan sidoo kale doctorku waxa uu si shakhsi ah fariin ugu diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uu fariinkan doctorku uu madaxweynaha ugu soo jeediyay in uu qaato go'aan uu dalka kaga joojinayo qaadka xukuumadda soo hartay haddii ay yiraahdeen dhaqaala naga soo gala canshuur baa naga soo gashay madaxweyne waxa kula hadlaya anigu waxaan ku haystaa
takhasus laba takhasus oo ay yar tahay qof Soomaali ah ama Somalilander ah inay haystaan dalka Ireland Dublin baan labada takhasusba ka soo qaatay ilaahay ma hada ka gaartay Cabdiraxiim Caabi Faarax ayaa korsiga iga bixiyay sanaday ugu qaadatay mid waxa la tropical medicine midna waxa la international health labaduba waxay nala soo baray xanuunada lamida COVID-19 ee caalamka ku faafa sidee looga hortagaa sidee gacan looga qabtaa waxa weeye barigan jabhada ahayn barigan dibadda mareynay ayaa qorshaha ahaa inaan hay'adaha u shaqeeyo caalamka aawooda u barto inaan maanta dalkayga uga faa'iideeyo way qaado talada qoxa kula hadlaya nin waayeela oo dawladii Maxamed Siyaad Barre ahaa wasiir ku xigeenka u qaabilsanaa xanuunada faafa sida viruskan oo kale ana mas'uulka ugu weynaa min Hargeysa ilaa Kismaayo xanuunada faafa aniga ahaa khibrada inta la igu aamini kar weeyday madaxweyne haddaan ku iraahdo jaadka korkiisa uu saaran yahay jeermisku miyaadan ka naxi karin qofka aad u tahay aabe qofka aad u tahay walaal yaase ku xaqiijiyay inaanu adiga ku soo galin marka dambe saan anigu iyo adigu liiska geeridan ku jirnaa ku talagal haddaan ka badbaadnana liiska dhaawacan ku jirnaa haddaan ka badbaadnana qaraabadana geeri iyo nolol ku jirta madaxweyne waa inaan mas'uuliyad culus saarnaa madaxweyne miyaan waxaan laga nax ahayn in guddiga wacyigelintu ay gacmaha mayra sanka xirta waxaan yeela ay ka baqeen ama ka xishoodeen xurmada jaadku leeyahay inay ku daraan wacyigelinta haddaan joojin karin madaxweyne waxaan ka codsanaya wacyigelinta ku dar qofku isagu haystilo laakiin qofku muxuu istilaa wuxuu galaafanaya qof walbaba ummadii kale galaafanaya mushkiladani ma aha mushkilo waaraysa waa mushkilo 40 casho gudahood laga yaabo dabayshaas inay na dhaafto siday dalal kale u dhaafayso ma aha mushkilo waliga jooji ah waa 40 casho 40 casho waan xambaari karnaa intaas uu saameyn karo dhaqaalaho wadaadada ganacsatada madaxweyne shiri sakadii soomkii ayaa taagan maxaa diidan in la ka qaado lacag maxaa diidan lacagta in raashin lagu soo gado ilaa arrimo way sii xumaan doonaane inaan haysano kaydkeeni bilo dalkan ku filaa maxaa diidan inteena jilicsan sakada lacagteeda in laga gaarsiiyo raashin iyo wax loo qaybiyo dadkii loo qaybiyo aabihi ummadda ta nacayb kuma lihi ya waxaan maanta ku sheegayaa inay doqonnimo tahay shakhsi kasta oo Soomaaliland jooga maantayto in uu siyaasad iyo mucaaradnimo iyo arrimo kale iyo dhexdeen ay ka furmaan maanta dalku dagaal buu ku jiraa dagaalkana afaafkiisa baan mareynaa mid ku nacab iyo mid ku jecel ba waxaan kula talin lahaa ya oo aan anigu ugu horeeyo waxaan kula talin lahaa in lagu daba faylo ee adiguna waanada qaado madaxweyne dadkaagu weeye dadka dhawaan ku arki doontid xabaalo fara badan ilaahay nagu ma keenay hadii taladu naga xumaato waa dadkaagi madaxweyne isweydii u yar bahda caafimaadka maxaad haysan bishinka neefta imisa haysan leh markuu soo rito oo maalin walba soo daadinayo 100 qof ee neef u baahan xageed ka keenaysa madaxweyne dagaalkaagu waa inta hore madaxweyne dagaalkaagu waa fayska hore dawladaha Talyaaniga iyo Mareykanka ka khibrad qaado ee awoodoodii maarta xakameyn kari waayay ta kale waxa dagaalka madaxweyne ku diyaara taladaada ogol awaamirtaada ogol lacagtooda ogol san maanta dhowta ka dhageysanayay karaamada iyo sharafta ay horta